waxaa mar qura isbedelay jawiga suuqa ugu weyn degmada Baraawe. halkani waa goobta uu ka dhacay qaraxa. waa boosteejada gawaarida aada deegaanka Kunya Barow. waa meel mashquul badan oo ganacsiyo badan ku yaalaan, laakiin goobta ay wax ka dhaceen waa meel shaaha lagu iibiyo, kaabigana ku haysa goob kale oo qaadka lagu iibiyo. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee degmada Baraawe Ismaaciil Cabdullaahi Jaadane ayaa ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen. waxa saaka degmada Baraawe ka dhacday nimanka cadawga nabadiidka ummadda Soomaaliyeed ayaa ku dhibaateeyay shacabka. meesha ay qarxiyeen ma ahan xarun dawladeed, ma ahan saldhig ciidan, ma ahan talis military, waa meel ay shacabka ku ganacsanayeen. waxa arkaysaana dhaawacyada waxay ahaayeen dad masaakiin oo shacab oo ganacsanayay. ma ahan wax ay Baraawe kaliya ka wadaan, oo wax ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhibaato ay ku hayaan, shacabka meel walba ay joogaan ay ku dhibaateeyaan. degmada Baraawe way ku cusub tahay qarax sidaan oo kaleeta hor lagu ma kaseenin. wixii dhaawaca iyo wixii intii dhaawactayna waxa waa la tacaalina, Allah ha bogsiyo insha Allah. dhimashana waxa lama sheegin, gadaal laga soo sheegi doonaa wixii dhimasho. waxaan fariin u diray cadawga ummadda Soomaaliyeed, mar walba dhibaateynta ummadda ku heysaan waa wax adinka ku dhamaanaysaan, ma ahan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeedba wax ka hor istaagaya dawladnimada in dadka difaacno. adinkana waa dhamaan doontaan insha Allah haddii Alla idmo. ilaa iyo hadda tirada la hayo waa 9 qof oo 4 ka mid ah dumar yihiin oo ku dhaawacmay qaraxa iyo dhimashada askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka. taliyaha booliiska degmada Baraawe ayaa warbaahinta uga waramay khasaaraha dhabta ah. taariikhdu tahay 6 bisha 9 2022 abaaro 10kii subaxnimo iyo bar waxaa degmada Baraawe waaxda wadajir agagaarka boosteesha Kunya Barow ka dhacay qarax meeno oo ay dhagar qabayaashu meesha ay dhigeen. sidoo taliyu sheegay waxaa ku dhintay 1 qof, 9 waa dhaawac. dhaawacyadoodu inta badan iska fudud yihiin. waxaan leenahay intii dhimantay Allah u naxariisto marxuumkaas, intii dhaawacantayna Allah u boogadhayo. dhaawacyada ayaa loo daabulay isbitaalka weyn ee dawladda, halkaas oo aanan lagula tacaali karin xaaladaha halista ah maadaama dhibanayaasha dhaawacoodu uu daran yahay. gaashaanle sare Cabdiraxmaan Cilmi Jimcaale oo Radio Baraawe la hadlay waxa uu ka dhawaajiyay in dadka deegaanka iyo ciidamaduba ay isku garab yihiin. waxay kala reebayaan oo shacabba mas dawladda aan lahayn ay israacsiinayana wax weeye taladoodu hadda maasha ay taalo waxba iska weydiimayno. tala kale ma lahayn, waa in lala jihaado, waa in lala diriro shacab iyo dawlad iyo ciidan intaba wax weeye isku garab baa saaka leeyahan u malayaha meel kasto la joogo. waxaan u sheegayaa cid ay deeyayaan ka gambaaya maadaama aan la arag inaan loo kala harin. anigu intaasaan leeyahay. 4 bishii January sanadkii 2020 ayaa qarax sidan oo kale ah lala beegsaday garoon kubadda cagta lagu ciyaaro ee degmada Baraawe, kaas oo ay ku waxyeeloobeen dad tiradoodu ay kor u dhaafayso 10 qof.